السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا وإذن سو دوينيا. انت إيقو حرن، انت برنامج كيغا داوتا، انت إيقو عصب، كل وحان إذا ليهاي سو دوادا آدي آدنا وإذن كبحاد يلنيا سيدا شرفت لا داوتا برنامج كيغا. ما انت وحروا إذن لغا يفسدو عذرك اللي يرهدو arthritis iyo cuntooyinka laga yaabo inay ku keenaan arthritis-ka iyo cunto aad kaga hortagi karto haddii aad arthritis leedahay ayaan idin la qaybsanayaa insha Allah. Arthritis-ka waxaa la yiri wuxuu leeyahay noocyo badan ilaa iyo 100 nooc ayuu leeyahay. Arthritis-ka waa af Soomaali rheumatism ayaa lagu dhahaa rheumatism. Marka arthritis-ka waa wax gala lafaha inta u dhaxaysa lafaha waxay leeyihiin meelo ay iskaga yimaadaan xubnaha lafaha meelo ay isaga yimaadaan ayay leeyihiin. Marka xubnahaas joints la dhahaa jointskaas ayuu galaa arthritis-ka. Marka arthritis-ka koowaad waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis. Rheumatoid badanaana inflammation-ka ayaa keena iyo cuntada qaarkeed aad cuntay ayaa ku keeni kara. Ka labaad waxaa la yiraahdaa gouts arthritis isaguna waa qayb kamid ah arthritis-ka. Goutskaas isaguna wuxuu galaa jointska meelaha lafaha isugu yimaada laakiin wuxuu kaga duwan yahay wax la yiraahdo uric acid ayaa gala xubnaha meelaha iskaga yimaadaan oo way soo bararaan. wax la yiraahdo uric acid oo sida maaragtay oo dhagax oo kale ayaa gala. ka saddexaad isaguna qaybaha ugu waaweyn ah ay kamid yahay waa waxa la yiraahdaa osteoporosis ama osteoarthritis. wuxuuna badanaa oo ku dhaca dadka waaweyn oo da'da ah ayuu ku dhaca. waxa la yiraahdaa osteoporosis ama osteoarthritis. saddexdaas ayaan rabaa maanta inaan idin qaybsado. marka kan rheumatoid arthritis-ka waxa keena rheumatoid arthritis waxa keena badanaa waxyaabaha sonkorta badan haddii aad badsato sida coca-colada oo kale biscuitka oo kale xalwada oo kale cabitaankan la soo gado magacyada fara badan leh sida faantada oo kale koolada adiga wax alla wax sonkor ku jirta oo aad soo gadatay oo sonkorba ku jirta iyo cusbada ayaa keena. cusbada iyo sonkorta waxyaabaha sida take away-da oo kale waxyaabaha cuntada banaanka laga cuno cusbada ayaa ku badanaa cusbo badan si ay cuntada macaan u noqoto cusbo badan ayaa lagu daraa iyo sonkor badan ayaa lagu daraa xataa cake qaar baa sonkor iyo cusbo la isku daraa. so waxyaabaha sonkorta badan iyo waxyaabaha cusbada badan ayaa keena badanaa rheumatoid arthritis-ka. marka ka kale ee goutska la leeyahay uric acid-ka isagana saas oo kale isagana waxa keena cuntada qaarkeed ayaa keenta especially cuntada oo uric acid-ka ay ku jirto waxaa kamid ah waxay dhahaan organ meats waxaa kamid ah beerka keliyaha ileen Soomaali badana hadaan Soomaalina beerka waan jecelnahay beerka waa la cunaa keliyaha waa la cunaa. marka waxa la yiraahdo uric acid ayaa ku badan xataa hilibka haddii la badsado naftigiisa ma fiicna. hilibka weekly 2 jeer ama 1 jeer ama 2 jeer hadaad cunto waa okay laakiin dad waxaa jira everyday hilib cuna. marka waxa laga yaabaa hilibkaas naftigiisa oo badan in laga qaado uric acid wax la yiraahdo ay lafaha ay ka galaan. waxaa kamid ah yaanyada ayaa kamid ah uric acid wax la yiraahdo ay leedahay. bataatiga kamid ah bataatiga uric acid wax la yiraahdo leeyahay. barbarooniga kamid ah. adiga wax nightshade la dhaho ayaa jira oo qudaarta nightshade la isku dhaho oo ay kamid yihiin yaanyada bataatiga barbarooniga iyo waxaas ay kamid yihiin. marka ka kale ee la yiraahdo isaguna osteoporosis badanaa wuxuu galaa dadka waaweyn. kaas isaguna waxyaabahan kale aan soo sheegnay ayaa u sababa naftigiisa. calcium la'aanta ayaana u badan qofka marka uu calcium enough u haysan iyo vitamin D enough u haysanin lafihiisu waxay noqdaan khafiif. marka badanaa osteoporosis marka la leeyahay lafaha ayaa khafiif noqda khafiif sida bastameerka maarta baastada saxanka baastada lagu miiro dulduleelka uu leeyahay ayay noqdaan lafaha ayaa saas noqda. marka osteoporosis macnihiisu waa saas. so osteoarthritis hadaad maqasho osteoporosis waa lafaha oo noqda khafiif. marka lafaha khafiif waxa ka dhiga calcium la'aan iyo vitamin D la'aan.
marka dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inay cuntadoodu ay cunin waxyaabaha calciumka ku jira ama vitamin D-ga qoraxda banaanka ay bixin oo guriga ay u badan yihiin ilaa dadka waaweyn badanaa guryaha ay u badan yihiin qaaraba laga yaabaa inay banaankaba aan weligood arkin ilaa sanado marka vitamin D qoraxda ma arkayaan so vitamin D-ga ka yaraanaya calciumkana wuu ka yaraanaya badanaa cuntada ay cunaan way ku xiran tahay haddii cunto oo sidaan soo sheegay oo kale sokor ku jirto ama waxyaabahan cusbada ku badan ay cunaan exactly ayuuna lafaha maaragtay way dhamaadaan cusbada badanaa calciumka ayay dishaa calciumka ayay baabisaa so saa idin sheegay marka cunto waxaa jirta marka aad kaga hortagi kartid cuntooyinka aad kaga hortagi kartid ayaan idin kala hadlayaa cuntooyinka aad kaga hortagi karto ee u fiican arthritis-ka waa cuntooyinkan fruitska maaragtay all fruits laakiin fruitska naftigooda ha isku badinin waayo qaar waxaa jira sokorta ay ku badan tahay naftigooda sida banana mooska oo kale mooska sokorta ku badan xoogaa laakiin maalintii hal xabo haddaad cunto waa okay laakiin ha ka badsanin waxaa kamid ah qudaarta adiga qudaarta oo dhan waxyaabaha cagaarka ah fruits qudaar muxuu ahaa basasha oo kale sanjabiisha gingerka garlic sanjabiisha basasha iyo muxuu ahaa toonta saddexdaas shay iyo fruits wax kasta oo qudaar ah qudaarta cambaha babayga muxuu ahaa all qudaar iyo cagaar waxyaabaha cagaaran oo dhan ayaad kaga hortagi kartaa iyo faatka la yiraahdo good fat oo ah faatka fiican sida avocado oil oo kale avocadada oo kale qudaarta kamid tahay iyadoo naftigeeda avocado malayga oo kale fishka looska waxyaabaha looska ku samaysan adigu all healthy foodka wax la dhaho aan ka ahayn kuwa arthritis-ku u daran yahay oo idinkala soo hadlay oo ay kamid tahay yaanyada oo kale arthritis-ku dadka arthritis-ka qaba yaanyada uma fiicna la yiri because saa idin sheegay uric acid ku jira beerka oo kale uma fiicna kelida oo kale uma fiicna hilibka badan uma fiicna bataatiga uma fiicna barbarooniga uma fiicna waxyaabahaasna iska ilaaliya ku bedeshta basasha sanjabiisha fruits qudaartoo dhan especially qudaarta cagaaran aad iyo aad ayay ugu fiican tahay insha allah intaas ayaa idinla qaybsanayaa aad iyo aad aa umahadsantihiin waa inoo iyo barnaamijka kale insha allah ee ku xiga videogan السلام عليكم.